عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta TV-ga BBC London wararka ugu waaweyn caawa waxa kamid ah heerka gudnoonka fircooniga Soomaaliya ayaa caalamka wali meel sare kaga jira dalka UK-na waxa laga cabsi qabaa in kooxda sheegata dawladda Islaamigu weerar ku soo qaadaan iyadoo kooxdaasi dhul badan laga saaray oo bariga dhexe ah imikana nala daawo iftiinka waxaad arki kartaa burburkii magaaladii Bombay ee qadiimiga ahayd qaramada midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya safka hore kaga jirto dalalka uu gudniinka fircooniga ku baahsan yahay qiyaasta caalamka oo dhan marka la eego haweenka la guday waa ugu yaraan 200 oo milyan Soomaaliya ayaa noqotay dalka adduunka ugu gudniinka badan waxaana qiyaasta la guday 8% haweenka ay da'doodu u dhaxayso 15 jirka ilaa 49 jirka dalka Djibouti ayaa isna kaalinta saddexaad galay iyada oo dumarka la guday qiyaastii 3% haddaba hibo mataan wardheere oo kamid ah dadka ku hawlan la dagaalanka gudniinka fircooniga ayaan goor dhaweed ku wareystay xarunta wararka ee BBC-da ugu horeyntii waxaan weydiiyay iyada oo dadaal badan la galay maxaa wali keenay in gudnoonka fircooniga uu sidan u sareeyo iyo sababta ay arrinkani halkaasi u gaarsiisan tahay mana aaminsan anaan 90% mayo waa soo jarnay wali 90 waa taaganahay laakiin ma ahan 98 ma ahan mid kale waxaan hortaagan waxyaabo badan anaka Soomaaliyeed waxyaabo badan hortaagan waxaan hidii dhaqankeena ku jirto 3,000 oo sano iyo ka badan waa wax wadnaheena iyo qalbigeena kulli ay dadkeena siiyeen waa wax oo diinida qaar ay leedahay in la isgudo way jirtaa waa yaani hidii dhaqanka way tahay marka waxyaabo badan ay jiro oo yaani naga hortaagan laakiin saas way tahay shaqooyin fiican way jiraan oo hooyooyinka lagu wacdi gelinayo oo culimooyinka ay kamid yihiin aabooyinka qaarkood ay kamid yihiin dadka yar yar ay kamid yihiin waxyaabo badan oo fiican way jiraan maxaad nooga sheegi karaysaa dhibaatada gudnoonka fircooniga uu leeyahay caafimaadka haweenka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay horta midka ugu weyn oo hooyo kasta oo Soomaali ah way ogtahay hooyo kasta oo Soomaaliya oo dhasho dhibka ay marayso way ogtahay dhibka ay marayaan waxa uu keenay waxa gudniinka qof kasta way ogtahay taas waxyaabaha kale oo dhan oo keenay iska dareen la'aanta iyo infectionka markasta socda iyo waxyaabahaas waa waxyaabaha goonida oo iska laakiin hooyo kasta oo dhalayso dhibaatada ay marayso way ogtahay xanuunka sida loo jarjarayo wax kasta way ogyiin hooyooyinka badan inta London jooga waxay u bateen waa la qalaa because cunuga ma dhali kala waxyaabaha laga gurto dhan waxay ahayd waxyaabo caawinaya marka cunuga dhalaysay wixii dhan waa laga gurtay ma lahan taas dhibkaas oo marayaan dhan way is ogtahay hooyo kasta way is ogtahay naagaha Soomaaliyeed waxa waa 9% rafaad ay maraan mid aan rafaad sheeganayn ma jirto markay dhalaysay intaas kaliya oo maraysid inay ahaato ahayd hooyo markaata gabar markaa dhashay inaad tiraado gudi maayo mar raba gabadheeda inay dhibkaas marto intaas kaliya waxay ahayd inay ku qabato oo gadaal ku celiso dhibaatadani way soo jiitamaysay welina way socotaa maxaa la gudboon haweenkii iyo hablihii Soomaaliyeed sidee wax looga qaban karaa cilmi simple way hooyo hadii la fahansiyo dhibkan aad maraysid waa doctor waxa ku keen laakiin la sii fahansiyo dhibaatooyinka kale ay marto oo iska indhadadayaan badan hooyooyinka because waxa hooyada hadii ka cabaadin waxyaabaha maraysid adigana ka cabaadi maysid because waxa wax caadi ah qof walba waa caadaysat wax kasta maraysid moqta laakiin waxa waay dadkeen waa dad maskax furan waa dad qalbi furan waa dad diyaar u ah in wax la fahansiyo waa in loo furo dhaqaatiirteena qaarkood waxa way ka xuyeen zaid ay xuyeen waxay leeyihiin markastaba hooyooyin waxa jira ilmi inta dhalay isu soo goostay oon kaadida haysan karin oo si dhib iyo qaxar maanta ku nool ilmi laga qaatay oo yaani leeyahay waa isku kaadisa waa uraysa waxaas oo dhan maxaa u keenay waa gudniin حق إن لا في ريوة هو يهدا تحق عنق أدليس حق بكولي إلهي بقى وأبورت سيدي شركي محاور بر ملكستو شركي إلهي سيدي وأبورت أنا كبني آدم أنا مركوح إلهي أبورتنا لأنه وحيابا كحنو أنكبد له طاس وقلت لكن عافماتك وأنا إلى علينا aad bay u mahadsan tahay hibo mataan oo maanta igu warramaysay stuudiyaha BBC-da faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday maanta rakibaadda qalabkii lagu maamuli lahaa hawada Soomaaliya
kadib markii muddo 9 bilood ah lagu muransanaa qalab ku jiray ilaa 9 konteenar oo loo waday xafiiska laga maamulo hawada Soomaaliya ee ku yaala magaalada Nairobi oo lagu hayay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. rabshado iyo dibadbaxyo ayaa laga soo wariyay magaalada Caabudaaq ee gobolka Galgaduud kadib markii la diiday lacagta 1,000 shilin ee laga isticmaalo gobolada dhexe ee Soomaaliya. magaalada Gaalkacyo ayaa iyana saaka la diiday lacagta 1,000 shilin taasi oo keentay inuu istaago ganacsiga magaaladaasi. Donald Trump ayaa galabta yimid dalka Jarmalka wuxuuna ka qayb galayaa shirka G20 ka horna waxa uu booqasho ku soo maray Poland halkaas oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen madaxda dalkaasi iyo dadweyne faraxsan oo magaciisa ku dhawaaqay. shir jiraayado ay wada qabteen isagii madaxweynaha waddankaasi ayuu Trump ku dhaleelay Ruushka. hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda bani'aadamka Amnesty International ayaa sheegtay in xaaladda xumaatay ee muhaajiriinta Yurub soo galaysa ay ka dambeeyaan wadamada midowga Yurub oo dhabarka u jeediyay aayaha dadkaasi. qorshaha reer Yurub ayaa waxa uu yahay in ilaalada xeebaha Liibiya la caawiyo si ay u joojiyaan in muhaajiriintu u soo gudbaan. khatarta weeraro ay geystaan dalkan UK taageerayaasha kooxda isugu yeedha dawladda Islaamiga ah ayaa kordhi karta iyadoo kooxdaasi ay gacantooda ka sii baxayaan dhul ballaaran oo ay haysteen. taasi waa digniinta madaxa xafiiska dacwad soogaha ee UK. qaybta BBC ee baaritaanka warka ayaa ogaatay in dad ka badan 100 qof oo ku sugan UK in lagu xukumay dambiyo argagixiso oo la xidhiidha Ciraaq iyo Suuriya. Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa. jihadoonayaal ku sugnaa UK oo ka badan 100 ayaa loo soo xiray eedeymo ah in ay xiriir leeyihiin kooxda isugu yeertay dawladda Islaamka. dadkan ayaa waxa ka mid ah macallin bara dadka wadista gawaarida oo da'diisa lagu sheegay 63 sano qofka ugu yarna uu yahay wiil iskuuley ah kaasi oo markii uu 14 sano jirka ahaa ku dhiiraday falal argagixiso. dumarka loo soo qabtay arrintan ayaa sii kordhaysa. xiriirka u dhaxeeya dadkan ayaa ah in ay taageersan yihiin IS oo looga adkaaday dagaalada ay ka wadaan Suuriya iyo Ciraaq. duqeymaha joogtada ay lagu hayo IS ayaa sababay in taageerayaashooda aysan u suuragelin in ay u safraan bariga dhexe. madaxa xafiiska dacwad oogista ayaa sheegtay in taas ay sare u qaadi karto cabsida argagixiso ee gudaha London. waxaan u baahannahay in aan xaqiijino in dadku aysan u safrin Suuriya. waxaana taasi ku aragnay kiisaska qaarkood oo dacwad lagu soo oogay. waxay qorsheyn karaan taasi beddelkeeda in ay weeraro halkan ka geystaan ama dad badan ay xagjireeyaan. waxaa la aaminsan yahay in 2 ka mid ah 3 nin ee geystay weerarkii ka dhacay buundada London oo ay ku dhinteen 8 qof ay doonayeen inay ku biiraan IS-ta Suuriya. wadaadka xagjirka ee Anjam Jordi ayaa ah ninka ugu weyn ee lagu xukumay dambi argagixisnimo. sanadkii la soo dhaafayna waxa uu qirtay in uu casuumay taageerayaasha kooxdaasi inkastoo xabsi la dhigayna fikirka uu taageerayay lama baabi'in karo. 50 sano ayaa laga joogaa markii Nigeria uu ka dhacay dagaal sokeeye oo dhiig badan ku daatay. 3 sano ayaa militariga dalkaasi la dagaalamayay dhaqdhaqaaq ku dhawaaqay inay dalka ka goynayaan Biafra. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa dagaalkaasi ku dhimatay. badankooda gaajo ayay u dhinteen. laakiin koonfurta bari ee Nigeria waxaa ka soo cusboonaaday maamulka Biafra. Axmed Xaaji Xasan ayaa warkaasi inoo haya. way xasuusan yihiin maalmihii jidda hore ee dagaalka. dhalinyaro ayay ahaayeen markii Nigeria ay la dagaalamayeen. waa maamulkii doonaya inuu go'o ee Biafra. laakiin heesaha ma ahan kuwa keli ah ee dagaalka ay ku xasuustaan. Patrick Adiolo wuxuu ka badbaaday duqayn. waxaan isku dayay inaan socdo ayuu yidhi. hal lug ayaan dhaqaajiyey waxaana gartay in midda kale aysan dhaqaaqayn. Nigeria ayaa dagaalka ku adkaatay. Biafrana waa la hareereeyay 1970kii. dagaalka wuu dhammaaday laakiin aragtida Biafra weli waa sideedii. jiil cusub oo aan dagaalka la kulmin ayaa cusboonaysiinaya in Nigeria ay ka go'aan. hogaamiye ayaa soo baxay 2 sano ka hor. Nnamdi Kanu waxaa loo xiray hadalladiisa kala goynta. xarigaasi caannimo ayuu ka qaaday. damiin ayaa lagu sii daayay welina hadalladiisii waa sidoodii. xuquuqdii aasaasiga ahayd ee horumarka sida ta dhaqaalaha iyo ta arrimaha bulshada ee aasaasiga lama heli karo. waxaana u sabab ah iyadoo ay jiraan shaki, nacayb iyo xaasidnimo. markaa waxaa wanaagsanba inaannu iska go'no. afti madax bannaani ayuu Biafra ugu baaqayaa.
laakiin ma cadda taageerada ay arrintaasi haysato xilligan. haddii aan la hadalnay awoowayaasheenna oo aan aragnay wixii ay la kulmeen uma malaynaynin inaan halkaasi mar kale ka hoos marayno. dadka ma faraxsano qofna ma faraxsano xaaladu way adag tahay haddii aan yaraano oo aan helno wax kasta diyaar ah waxay ila tahay xaaladu way hagaagaysaa. dowladda waxay ku adkaysanaysaa inaysan madadaalo u arkaynin kala go'a. hogaamiyayaasha qowmiyadda Igbo waxay doonayaan midnimada Nigeria. ayadoo hadalladaasi ay socdaan haddana waxaa cad in dalkan uu doonayo inuu meel u jihayso si jiilka cusub looga badbaadiyo inaysan dib ugu noqonin maalmihii madooba. xagga ciyaarahana tenista haddaynu eegno horyaalkii hore ee Wimbledon Novak Djokovic ayaa ku guuleystay ciyaartii uu la ciyaarayay Adam Pavlicic. xagga hablahana gabadha kaalinta toddobaad ku jirta Valentina Kustinova ayaa garaacday gabadha kale iyana ruushka ah Elektrina Maskarova. Manchester United iyo kubadda cagta haddaynu eegnana waxay ogolaadeen Manchester United inay bixiyaan lacag gaadhaysa $95 milyan oo ay kula wareegayaan weeraryahanka Everton Romelu Lukaku. ciyaartooygan 24 jirka ah oo ciyaara qaranka Belgium ayaa dhaliyay 25 gool ciyaarihii horyaalka Ingiriiska. Manchester United ayaa ciyaartooygan aad u raadinayay sanadkii u dambeeyay waxayna rajeynayaan in hawshaasi soo gabagabowdo intaanay Mareykan u duulin oo ay ciyaar ku leeyihiin. Mo Farah ayaa shaaca ka qaaday inaanu weligii dhiiggiisa laga helin wax khalada. waxaa la sii daayay waraaqo la soo jabsaday oo muujiyay in tijaabo dhiigeed mar laga shakiyay. baaritaanada ayaa muujiyay markii dambe in Mo Farah dhiiggiisu caadi ah oo wax waliba ay sax yihiin. afayeenkiisa ayaa sheegay in dadka waxa faafiyay ay u jeedeen in aflagaado waayo mar qura xitaa uu ururka dhiigga ciyaartooyga baadha lamabay soo xidhiidhin Mo Farah. Pompeii waa mid ka mid ah meelaha dalxiisayaasha soo jiitay ee dalka Talyaaniga. Pompeii waxa baabi'iyay aan idhaahday fulkaano halkaasi ka qarxay 79 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. tan iyo markii dalxiisayaasha loo furay waxaa jiray xadidaad ah xilliga la booqan karo laakiin qaar ka mid ah xakameyntaasi ayaa hadda la fudeediyay. Yaasmiin Axmed ayaa ka waramaysa. in ka badan 3 milyan oo qof ayaa soo booqday Pompeii sanadkii hore. waa magaalo taariikhi ah oo burburtay balse hadda dadka fursad ayay haystaan inay ku arkaan magaaladan oo weji cusub leh. dhismahan oo qadiimiga ah ayaa hadda la soo booqan karaa. nololka sidaan ayaa loo shiday waa sida ay ahaan jirtay 2000 sano ka hor. waxaa loo maleeyaa inay in ka badan 10,000 oo qof ay ku noolaayeen Pompeii. waxay u ahayd dekad guud boqortooyada Roman balse volkaano meel u dhow ka dhacday ayaa ku daatay magaalada wuxuuna u bedelay dambas. ragga dumarka iyo ilmaha ayagoo nool ayay duugmeen. dhagaxyadana u jeediin waxaa laga sameeyey meydadkii. koox loo qaybiyey min 60 qof ayaa loo ogolaanayaa inay dhex maraan magaaladan si ay u arkaan mid ka mid ah meelaha ugu caansan boqortooyadii Roman. ugu dambeyntiina bal nala daawo ninkan yar waa jeer yar oo lab ah oo saabka carruurta lagu qaadi karayo. wuxuu jiraa 2 usbuuc. waa jeerta nooca cilinka ah ee gaagaaban. waxaa lagu soo bandhigay beerta xayawaanka ee Chile. jeertan gaagaaban ayaa aad uga yar jeerta caadiga ah. jeerkan yar ayaa ahaa 14 kilogram. waxaa asalkoodu ka yimid galbeedka Afrika. weli magac looma bixin. intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii caawa. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. intaaynu mar kale kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo iyo kulan dambe.